السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا عليك عليك soo dhawaada caafimaadkiina saad tihiin. maanta waxaan rabaa inaan la qaybsado timaha waxaan gabdhahayga u mariyo axad walbo sidaan hadaa ugu hagaajisatid ilmaha gabdhaha timaha u baxayaan. Hadda ani gabdhayda timaha waa ka jaray ciidiyaan ka jaray haddana way usoo dhadheeraadeen maasha Allah. Marka waxaan isku darsanaynaa yogurt laba xabo oo ukun ah iyo olive oil mise hadaa rabto saliid saytuunka iyo maxaa la dhahaa saliida oo coconut oilka any oil adi aa rabtid ayaa isticmaali kartaa. Marka waxaan ku darsanaynaa yogurtkii iyo malabkaan isku darayaa iyo ukunta laba xabo ukun ayaan ka sameysanayaa waayo anigana waa la marsan rabaa. hal xabo ukun iyo hal yar oo yogurt ah kugu filan hadaa hal cunug bas u marinayso mise laba hadaa tihiin mise ka badan tihiin oo saddex aad tihiin waxa waaye inta hadda qasanaya camal kugu filan waxba ka soo horaay wali hadda intaan anina waa marsaday gabadheeda yarna way marsatay waxaa naga soo haray wali hataa muzeyga madaxa loo mariyay inta kalena waa daadiyay wax badan intaas ku anfacaysa haday tintaada badan tahana hal qof ay ku filan tahay madaxa dhan aqoynaysa moogtaa shaqa ka dhigay ad yogurtkii iyo ukuntii labada xabo ukun iyo malabkii isku qasaya si fiican isku soo qasaya markay si fiican isku dhex galaan ayaan gabadha madaxa u marin doonaa. marka walaalay soo dhawaada hada channelkayga ku cusubta oo waqti marka kugu horeeyay ay imaanayso u yahay subscribe isaar like comment iga soo bixi aad iyo aad aan u mahadsan tahay like iyo comment-ka iyo share-ka intaba waa dhiirigelin aad iyo aad aan mahadsan tihiin. marka si fiican iskugu qaseena kadibna madaxa marsan doonaa waan arki doontiin every process caadi ah arkaysiin ku duwa soo duwaata anoo gabdhaha madaxa u marinayo. marka haddii cunugaaga uu allergy ku yahay eggs iyo maxaa la dhahaa caanahabo ha iskaga marinin waayo ani gabadheeda yarta ayaa allergy ku ayada waxaan u sameeyaa mar walba iyadana different mask-aan u sameeyaa hataa iyada way ku jirtaa videoga anoo u marinayo waxyaalaha aan ka sameeyay mask-keedana waa idin sheegi doonaa insha allahu tacaala. marka soo dhawaada ismartiyeenina maxaa la dhahaa mininkiina waayo man dhihi jirino soo dhawaada channelkana waxaa waaye channel oo waxyaalo badan lagu soo gudbiyo hadaa igu cusub tahay gacmo furan kusoo dhawow waan kala faa'iideynaa haddii oo videogan ka heshana like maaragteen dhac ku siiya baryahaneeto oo youtube waxaa ka socdaa negativity madaxa ku qarxayaan ku dhahay wallaahi maxaan dhahay why oo anaka u jecelnahay maxaa la dhahaa negative le ani wallaahi been ma idin sheegay channelaha negative-ka aan ku arka dhan unsubscribe ka dhigaa no because I don't need it. waxaan ahay dadka oo maaragtay qof markuu emotional iyo wax ka sheekeynayo waa la qiiroodaa qofka markaan la qiiroodo haddana qofkii soo fariisana wuxuu ku leeyahay waxaan sheegaya dhan waxa ma ka jiro waayo dadka oo ugu ciyaaraysin emotionkiisa it's not good because qofkaan ma ogid wuxuu sameeyay walaa dad badan oo oynayo oo waa la ooyaa markaan la ooyo waxaa arkaysaa qofkii haddana next day waa prank waxa mise I didn't mean it lagu leeyahay daacadda may ka ahayn. marka negative meesha ku arka ana hadda ma daawanayo all positive jecelahay marka channelkaygana positive le ku arki doontiin insha Allah. hadaa positive jeceshihiin subscribe saara negative da jeceshihiin hore la usii soconaysiina haddana xasmeenayaa saliida marka saliida oo soo kuleenaya wax yar intaan wali mask u marinin ayaa waxaan u marin rabaa hair treatment u sameynaya oo hot oil treatment bas saliida ayadoo aadna u kululaa cunugta ilmaha madaxa ka goobin like biyo saliid kulul ha u marin laakiin ayadoo qandac ay maaragtay timaha meesha ka soo baxayaan salka ayaa u marinay marka jid ayaan bixinayaa saasa ugu wadaaya adi jidada u bixinayaa jidka meeshan jidka ka bixi hada saliida oo hot oilka marinaya waa ku massage gareynaya gudaha hoose adintooda dhan ayaa waxaan maxaa la dhahaa aan saliidka wada buuxinaya
because saliid waxaan ka buuxiyaa jeceliyahay ani waana ii shaqeysaa mar walba isbuuc walba waan sameeyaa every Sunday aniga tan sheekadan waan sameeyaa maskiga inaan ka bedelo waagaya oo different mask aan u mariyo maxaa la dhahaa maskan haddana markii labaad aan marsanayna waayo waan ka helay timaha wuxuu kaaga dhigayaa shine uu kaaga dhigayaa wuu ku dhalaalinayaa waan aadayna kugu qurxinaya laakiin maskyaal kale oo gabdhahayga u mariyaan way jiraan haddaa ka heshiin hoos waa igu qori kartiin oo idinku soo qoraya weli mask waxaa jira oo timaha aad u bixinayo gabdhahayga timaha aad ugu bixiyay waan ka jara hadda gabadhaydan yarta Najma la dhahaa waan ka jara iyada ciidiyaan ka jara waana arkaysin tinteeda si ay u dheertahay maasha Allah marka ilmaha timahooda ka shaqeeya haddaa rabtid inaad timaha ilmaha kugu dheeraadaan waa inaad waqti gelisaa waa inaad week walbo mask u marisaa saliid hair treatment timaha oo saliida la marinayo saliid kulul timaha aad ay ugu fiican tahay inta sida hadda sadana ugu kala bixinaya jid walbo waa marinaya ayagana aad ugu buuxinaya kadibna waan duuduubaya intaan weli mask marinin waaye mask waxa ka horeysa hair treatment ka marka dadka qaar way ka rins garayaan laakiin ani waqti uma hayo inta ka buuxiyo saliideeda ayadoo qabto ayaan haddana waqti yar u daynaya haddana waxaan u marinayaa maska u mariya kadibna waxaan ugu xiraa bacda madaxa ugu xiraa hal saac ka bacdi ayaan ka dhaqaa marka wax walba waqti ay geliso le waaye time le gelinaysa nice oo noqonaysa masha Allah very beautiful marka aad mask la marinaayana always timahaada waa inay clean hayaan waa soo dhaqay laba shaqo waaye waa ku maxaa la dhahaa too much work waaye laakiin marka timaha ilmaha ka furfurtid galaan hadday u galaamin yihiin waxaa sameynaysaa waa usoo dhaqaysaa markaa usoo dhaqtid ka dambe ayaa saliid u marinaysaa madaxa wasaq ee saliid ha marinin because tint meesha kasoo bixi lahayd wasaq waa intay tint kasoo baxaysaa saliida ka buuxinaynaa kadib mask ayaan u marinaynaa ayadoo clean waa qaadna mask iyara u marinaya haddana waan duubayaa caadi laastiga ku xiraya saasaa ku wadi doonaa kadibna bacda ayaan madaxa soo gelin doonaa marka Najmo waa usoo dhamaatay axlaamna la gaaray axlaamna waxaa waaye maskeeda ayada ukun kuma jirto maxaa la yogurtna kuma jiro waaye iyada allergy ay ku tahay miskiinta ukunna allergy ay ku tahay caanahana allergy ay ku tahay maxaa la dhahaa hal daqiiqo ma fadhin kartaa daa waxaa u marisid madaxeeda yaanyo camal u guduudanaya marka ayada hadda waxaan iskugu soo khasay avocado iyo xabad moos iyo xabad avocado iyo saliid oo olive oil any type of oil I haysatid okay waaye hadda laakiin ana waxaan isticmaalay grape oil marka axlaam waqtigeeda la gaaray iyadana waxaan iskugu soo qasay xabad moos xabad avocado iyo saliid ayaan iskugu soo qasay yaraa lahaada inta isku qasay maydan tusinin waayo baby riis aan haystaa oo 3 bilood bas jiro aabihiisa ahaayay aaduna ugu oynaayo marka waxaad dhan degdeg aan ugu dhiga intaas ayaan iskugu marinaya marka walaalahay aad iyo aad mahadsantihiin daawashada videoga daawanaysiin sida idin hore idinku sheegay day ugu cusubtihiin subscribe like and comment inta waa dhiirigelin aad iyo aad mahadsantihiin inta waqti kale ka kulmayno waxaan idinka tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye bye guys